waxaan ku baaqnay mudaharaad dhacaya 19 bisha maalinta Jimcaha kana dhacaya daljirka Dahsoon dadka Soomaaliyeed inay isugu soo baxaan oo aan sheego taariikhda iyo maalinta iyo makaanka uu ka dhacaya waa saddexdaas aan ku heshiinay oo dadka Soomaaliyeed aan ka codsanayno oo magaalada Muqdisho ku nool inay isku soo baxaan si nabad ah oo ay muujiyaan in aan dalka Soomaaliyeed sharci darro cid ku xukumi kartaa aysan jirin maanta inta soo istaagno waa halkaas madaxweynaha xilkiisa dhamaaday ee hadda filla Soomaaliya sida xoogga ee sharci darrada ku jooga inay dadkan u muujiyaan inuu halkaas ku joogi karin sida la socotiin madaxweynaha iyadoo dhuusamareeb la fadhiyo mandatekiisa ama duxileedkiisana 2 maalin ay ka dhiman tahay ayuu ka soo istaagay fadhigi oo uga soo istaagay arrin yar oo la xalli karo ah yaa noqonaya gudoomiyaha degmada Garbahare ayuu uga soo istaagay asagoonan muddo xilaad sharci haysanin iyo asagoonan mandate siyaasadeed oo heshiis lagu yahay aan haysanin oo si ulakaca oo u soo istaagay wuxuu soo istaagay inuu tijaabiyo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Muqdisho jooga oo ku tijaabiyo inuu si sharci darro asoona xil haysan oo ku xukumi karo talada dalka oo ku haysan karo saas daraaddeed annaga waxaan rabnaa si nabada inaan ku muujino talada dalka inuusan haysan karin sharci darrana uusan ku haysan karin sidaas nabadaan aan isugu soo baxno madaxweynahana hadda wuxuu filla Soomaaliya ka bilaabay dukumiintiyada inuu si sharci darro uga soo saaro oo taariikho hore u sameeyo kalsooni darro uu ka qabo inuu maanta dukumiinti saxiixo intuu iska dhaafay iyo wuxuu ka shaqeeyaa inuu dukumiintiyo taariikh hore u sameeyo oo ku soo saaro magac dawladeed ama magaciisa uu ku soo saaro asagoo sharciga iyo dastuurka dalkaba intaba jabinaya annaga marka waxaan rabnaa inay wadadaas xigaal shiidaada waxa laga sheegay war waxa subxaaya waxa sankaaga maray seewaay ma rabo dhahay in wadaha la maray noqoto aniga sankayga oo noqdo farmaajo inuu sharci darro dalkan ku joogo intuu sharciga ku joogo wuxuu dambi iyo dulmi geysto oo dadka had intaan taagan u geystan oo wada ogtihiin ma rabno inuu soo sharci darro dalkan joogo wuxuuna ku sheekeeyaa asaga inta yar filla Soomaaliya la joogta siyaasiyiinta kaliya inay hayaan waxaan rabnaa inaan muujino cidays hayaan farmaajo inay shacabka tahay cid oo xoog ku xukumayo shacabka ay tahay cid oo jiidka xirayo shacabka ay tahay madaxweynaha waxa la kir laayahay banaadir lagu shiro magaalada Muqdisho lagu shiro la kir laayahay markaasuu habeenkii saqdhax inta Twitter uu leeyahay Garow lagu shiro reer Garow markay dhayaan war Soomaali caasimada ay leedahay caasimada hal isugu tagana waa diiday haddana mid kale oo tuur wuxuu yiri Baydhabo hal tago haddana waa soo tuuraabeen waa soo kaco xulay 13 kursi aan banaadir siiyay nin jahwareer iyo dadka Soomaali isku diray ka shaqeeyo waaye xilkiisii waa dhamaaday si nabada inaan isaga bixnaan rabnaa dadka reer Muqdisho nagu taageera jidadka in ka xiran canshuur dheeraad ah ka qaada gabdhihiina haweenkiina jidadka ku dhala nolol iyo waxbarasho caafimaad isbitaalka lagu wada dhimanayo covid lagu wada dhimanaya oo oxygenkii la yahay xagee aad hantidii dawladda iyo wixii loogu talagalay intaan ka badan dulmi lagu masafri karo na taageera soo baxa isku soo baxa idinka awoodda shacabka ah taas aan ku baaqaynaa waa maasantii